magaalada Jowhar ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle waxaa saameeyay roobab dhawaan ka daay isku socodka gaadiidka dadweynaha waxa warbixinta inoo qaada dhigay wariyaha magaalada Jowhar ee 5TV Yusuf Abubakar roobabka ka daay magaalada Jowhar ayaa saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan afarta xaafadood ee magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaana baaqay ugu jeediyeen maamulka Hirshabeelle أنا ربي باكوجرنا أنا لو سوغر قارنا برشلو سوماليات أي أنا لو سوغر بان بيا برشلو بانك سوماليات أورك أكو جراي أفانولة هو يودينك ويلغاين دبعتها ما أركانك محمد سيادة سوجوك جري محمد داره هجامي قحط سوجوك جري دبعتها ويلغاين ما أركانك biyaha waa noo lagu xiri oo kaan qarash inay ku aruursado meeshaan maamul waa ka jira leeyahay maamulna ma ka jiro magarad intii shiimaaday ilaa faano la geeskiisa meeshii oo isbitaalka halaas biyaha isku xiran yihiin ilaa xalay ilaa waagan inta halaan biyo dhumisahayna maamulna kama jiro haday maamul ka jiro banaan baa dhulkan waa wax baa laga qaban jiray maxamed dheer wax buu ka qaban jiray maxamed siyaad wax buu ka qaban jiray hadana wax baa naga kala qabanayo male maamul baa tiina leeyihiin kaliya waa duugteen wax allaala wixii biyo meeshii ka baxayna beer laga wada dhigay hadaad maamultiin meesha dadka celin leeyahay roobkii oo xal ilaa shalay subax do'ayay fasahaadkan ayaa keenay alxamdulillaah rabbil caalamiin shukr ma hatorta ilaahay yaa iskale ilaahay aanu ku mahadinaynaa ilaahaanu ku shukrinaynaa laakiin waxa idinka codsanaynaa insha Allah taala ina kaalmo xoogan aad ka qaadatiin iyo kaalin meel wax ku karsana male ciyaalkii waxaan siisana malaha jooriyaalkii waa naga daadaadeen meel dab ku shidana male cunto meelanka kaasana male meelanka shaqaysana male meel shaqo ugu aadna ma haysano ee anaga soo gaaro maamulka anaga soo gaaraano dhawaataana hayso meel afka siina male meel oo macnaha oo wax ka kaasana male saara biyo oo dhex jira lugeeyga xataa biyo ku dhex jiro waxaan u sheegay maamulka Hirshabeelle inaan dhibaato ku jirno oo aad ugu jirno xali ilaa shalay roobkii dhax galnay dhumisan hayay xaafadan ayaan deganahay cayalkan aniga hal sariir ku tubnaa xali marka dhibaato aad iyo aad aan ku jirnay maamulka waxaan ugu baaqayaa in si degdeg naga soo gaaraan gudoomiyaha xaafadda Kulmis Yaxya Xasan Sheekh ayaan wax ka weydiinay saameynta uu ku yeeshay roobka ka daay magaalada Jowhar roob weyn oo khasaaro badan geystay afarta xaafadood ee ka tirsan degmada Jowhar qaasatan anigoo ah gudoomiyaha xaafadda Kulmis markaan saaki soo baxayaan soo kormeer meel badan iyo guriyo badan ee biyo ku jiraan dad badan baa xal ku bariyay biyo dhaxdooda ilaa haddana waxaan ku jirnaa shaqo waa meelaha leemanka biyaha ay ka baxayaan toosinayna wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada maamulka Hirshabeelle xildhibaan Cumar Gaabo ayaa ka sheegay roobka ka daay magaalada Jowhar saameynta uu ku yeeshay afarta xaafadood ee magaalada Jowhar sidaad u jeedeen magaalada Jowhar xalay iyo shalay iyo maanta waxa ka daay roobkii gu'a ahay gaar ahaan xagaaygi waqti dheer oo xagaayga maqnaay hadda waxaad u malaysaa in uu hal mar sidii roobka ka daran buu u daay afarta xaafadood ee degmada Jowhar meel fiyo hadda mala kulay xaafad walba qayla ka soo yeerayso oo meel walba waxa laga leeyahay in ay dadkii guriga biyaha u galeen sidii tii hore camal hal caaw kaliya ay wada sidaan yeelay haduu caaw ku soo celiyeen waxa suurtagal in guriyo badan ay dadkoodii ka barakacaan Yusuf Abubakar Ibrahim 5 Somali TV Jowhar